waxaa ka mid ahaa inaan soo dejiyo ciidanka badda magaalada la yiraahdo Hobyo dekada Berbera heshiis ay ku jireen iyo sheer ay ka qaateen baa jiray Ethiopia oo aniga iga badbanaa waxyaabahaas oo dhan heshiisyada noocaas ah nidaamka dekadaha kullay Ethiopia dambay u tahay oo ahayd innagana lafteedana dambay inoo ahayd laakiin aniga shakhsiyan danta iigu jirtay gaarka waxay ahayd inaan helo ciidamo Soomaalida la soo duldajiyo in ciidanka badda ee Ethiopia uu yimaado Hobyo inuu yimaado meesha la yiraahdo Barawe inaan wadanka gabi ahaanba cuna qabatayn ku soo rogo isteeyadan dekadaha gaarka ah isticmaalaya in la helo ciidamo qalabaysan oo ka talaabo qaada maraakiibta jihada ku socota oo dhan leexiya oo ku xira jihooyin kale isla wadankana u roga hal meel oo center ah oo wax laga kala qaybinayo ana qabataynta cirka ee meelaha qaarkood saaray waxaan soo watay oo iigu dhimanay ana qabatayn dhinaca badda inaan la imaado taa oo waqtiga iyo duruufta iyo dantu ii diiday haddii aad iigu dartaan doorkan 4 sano waan gaari doonaa inaan soo dejiyo Barawe inaan soo dejiyo meesha la yiraahdo Hobyo in dekada Boosaaso iyo Garacad laga kontrolo Hobyo ciidan degan marag dekada Kismaayo in laga kontrolo Barawe hawluhu waxay u socon lahaayeen tartiiba Barawe iyo Hobyo in la kala dejiyo 15,000 ilaa 20,000 oo ciidanka Ethiopia muqdisho lafteeda in ay nidaam saameyn ku yeeshaan umurahaas oo dhan waxay sahli lahaayeen in anigu aan sii fadhiyo muddo dheer waysan yahay waxay horseed u noqotay arrintaas inaan toos u maamuli weyno doorashooyinkii ka dhacay Hirshabeelle iyo meesha la yiraahdo galmudug mar saddexaad waxaa caqabad nagu noqotay nidaamkii muddo kororsiga ee aanu samaynay caraabin fara badan oo ka imanaysa dhinaca Puntland iyo Jubaland oo lagu soo abaabulay deegaanada Hirshabeelle iyo galmudug iyo gobolka Banaadir intaba ilaa iyo la soo daaqulay ciidamo aan anagu ogeyn markii hore kuna xisaabtamaynin